ninkii Netanyahu ahaa ayaa shir jaraa'id qabtay oo sharax wuxuu rabo sheegay video ka daaray meesha sidaas wax yihiin kanay wax yihiin waxa qayla ka baxay Gaza inaan anaga qabsano qaadano ma rabno inaan xoreynaa rabnaa inaan saan yeelnaa rabnaa kan inaan yeelnaa rabnaa wuxuu weeraray warbaahintii gaar ahaan kuwii Mareykanka wuxuu yiri qaarkood New York Times iyo maxkamadan la fuulaya been sheegeen sawirro aan jirin oo Gaza dad ku dhimanay leeyahay wax ka jira male wuxuu rabo iska sheegay hadalkiisa marka la soo koobo waxa la yiri meel uu u socdo iyo meel uu ka socdo xataa lama yaqaan Gaza wuxuu leeyahay gaajo kama jirto dhibaato kama jirto haddana wuxuu leeyahay waxaan rabnaa inaan ka xoreyno nimankan gaajaysiiyay dadka iyo dhibaatada iyo Hamas wuxuu rabo isku qasaalay haddaba markaan idin soo koobo wararkii ugu waaweynaa oo ay warbaahinta ka qoreen Netanyahu wuxuu inkiray in xasuuq iyo gaajo ay ka jirto Gaza wuxuuna eed kala dul dhacay warbaahinta caalamka wuxuuna sheegay inay been ka sheegayaan xaqiiqada ka jirta Gaza ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo isagu ah nin laga doonayo maxkamadda dambiyada caalamiga ayaa wuxuu sheegay in markaa aanay jirin wax gaajo ah iyo xasuuq ah wuu inkiray inay ka jiraan Gaza dhanka kale wuxuu weerar ku qaaday warbaahinta caalamka wuxuuna sheegay inay been ka sheegayaan oo ay faafinayaan sawirro musayafa oo aan waxba jirin oo been ah wuxuu sidoo kale eedayn kala dul dhacay warbaahinta iyaguna af-carbeedka ku hadla oo sheegay inay iyaguna markaa qaladaad fara badan sameynayaan haddaba shirkiisa jaraa'id waxa uu sheegay maanta axada oo uu qabtay inay arrimahaasi oo dhan ay yihiin waxyaabo la dhoodhoobay oo aan waxba ka jirin haddaba qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa wuxuu sheegay hadafka inaanu ahayn inay gumaystaan oo ay qaataan Gaza balse ay tahay inay xoreeyaan waxa uu dhanka kale sheegay dagaalka inuu suuragal yahay inuu dhammaanayo beritaba haddii uu yiri Hamas ay hub ka dhigto dhanka kale wuxuu sheegay hadafkeenu wuxuu yahay inaynu hubka ka dhigno Hamas oo aynu halkaa ka samayno sida uu yiri maamul rayd ah oo markaa aan wax dhibaato kaga imanayn Israa'iil xiriirna aanay la lahayn Hamas iyo maamulka Falastiiniyiinta waxa uu dhanka kale sheegay inaanay doonayn iyaga oo Yahuuda ah inay arkaan Gaza oo markaa Hamas iyo maamulka Falastiiniyiinta ay markaa qayb ka yihiin waxaana uu sheegay inay doonayaan Hamas iyo maamulka Falastiiniyiinta oo aan maamulin Gaza inay arkaan dhanka kale wuxuu sheegay Hamas inay iyadu diiday hubka inay dhigto marka wuxuu sheegay inay muhiim noqotay in Israa'iil ay dhamaystirto ujeedadeedii ahayd inay Hamas hubka ka dhigto siyaasadeena wuxuu sheegay ku wajahan dagaalka waa in markaa laga hortago oo la mamnuuco in waxyaabo bini aadanimo ay dhacaan waxaynu gelinay uu leeyahay Gaza milyanis tan oo gargaar ah tan iyo markii dagaalka uu bilowday mawjada waxa uu sheegaa dhan marka waxa leeyahay wuxuu rabo iska sheegay warbaahintii oo iska weeraray waxa ay buunbuuninayaan sawirrada meesha gaajo kama jirto leeyahay waxa maalin kasta ay warbaahintu dul taagan yihiin isbitaalada caruurta gaajada u dhimanayso wuxuu marka soo qaatay video meesha soo dhigay sawir meesha soo dhigay dhinaciisa sawirka marka waa ninkii Yahuudiga ahaa ee dhawaan ay muqaawamadu soo bandhigeen oo gaajadu ka muuqatay oo asagu dhan lafaha noqday ninkii marka wuxuu sameeyay ninkii lafaha noqday ayaa nin wuxuu u dhiibayaa la leeyahay koob biyo ah marka wuxuu isbarbar dhigayaa gacanta u dhiibaysa koobka oo ah qof muqaawamada ah oo uu leeyahay gacantan say u xoogan tahay arag iyo ninka loo dhiibayo soo u gaajaysan yahay marka iyaga gaajaysiyo leeyahay si ay caalamka u tusaan in meesha gaajo ka jirto marka waa been u leeyahay hadii marka gaajo ka jir leed kula gacantan biyaha dhiibaysa maxay xoogan u yeelatay marka
ninkii marka wuxuu rabo iska sheegayo marka waxa leeyahay waxa ka keenay inuu shirka jaraa'id qabto culaysyada caalamka ka imaanaya wixii maanta barnaamijkaygii hore subaxnimo aan ku sheegay mudaharaadyada adduunka oo dhan qaylinaya dawladihii adduunka oo dhan waxa kan jooji la leeyahay ninka marka waxa leeyahay sheekadaas ayuu la yimid hadalkaas ayuu keenay marka warkiisa waxay leeyihiin dadka wax falanqeynaya wax cusub oo muhiim ah ku jira mala intii uu sheegi jiray loo naashnaashilay ilaa wax badan uu ka been sheegay iyo weerarkan warbaahinta uu ku qaaday intaas ka cusubay leeyin hadaba marka waa ka soconaynaa marka hadalkaas shirka jaraa'id ayuu maanta qabtay sheekooyinka kale ee soo kordhay waxa kamid ah intaynu kala maqnayn afhayeenka ciidanka Israa'iil Adrai Afqai ninka la leeyahay ayaa wuxuu sheegay sheeko cajiib ah wuxuu soo bandhigay sawir uu leeyahay waa diyaarad daroona oo waday qoryo iyo rasaas waxayna ka timid dhanka Masar ciidankeena soo ridoolay hadaba marka hore aan idin tuso hadalkiisa afhayeenka waxa leeyahay Afqai Adrai wuxuu sheegay in ciidanka Israa'iil ay markaa fashiliyeen isku day hub lagu tahriibinayay oo markaa dhanka Masar laga keenay oo Israa'iil xaggeeda la soo gelinayay dhanka kale wuxuu sheegay in ciidanka difaaca Israa'iil ay maanta oo axada ay ka hortageen arintaas deegaanka la yiraahdo Faaraan liwaa Faaraan meesha la yiraahdo ayaa lagu qabtay diyaaradda u leeyahay diyaaraddaas marka waxay ka timid dhanka Masaarida waxay u soo gudubtay dhanka sida uu yiri dawladda Israa'iil isku dayguna wuxuu ahaa in hubka la soo tahriibiyo oo gacanta loo geliyo dagaalyahanada ka dagaalamaya Gaza mawjida marka wuxuu leeyahay diyaaraddu marka way si faahfaahinayaan waxay leeyihiin waxay waday 10 qoray iyo qasnadahooda rasaasa waxaasay wadeelay xagee ka imaatay Masar ilaa hadda marka waxba arika kama hadlin laakiin iyagu waxay leeyihiin dhanka Masar ay ka timid qoryahaasay waday iyo rasaastaas marka dhanka Gaza u socotay ayay yahuudu ku doodayaan dhanka kale meeshii laga sugayay marka nimankan Masaarida ah inay maaragtay ka jawaabaan arikaas sheekadoodu waxay u bedeleen waxay leeyihiin ciidankeena heegan aan gelinay annaga dagaal aan galaynaa horyaa la dagaalamaysan leeyihiin dadkii Masaarida xataa dhexdooda commentiska ka bixinay waxay leeyihiin waa idin ognahay ma adika la dagaalamay Israa'iil mise shacabkan kacsano adduunka oo dhan ka qeylinaya u ruwaayadeynaysan arma sheegtaan ay leeyihiin cidda aad dagaalka ku qaadaysaan ama la diriraysaan ciidanka heegan hagalo waa dagaalamayna warmiya yaa la dagaalamaysa ma sheegtiin yaa waaya ciidanka waxay la dagaalamayaan hadaba marka aan tuso warbixin laga qoray jineeda raayul waxay leedahay Masar wasiirkeeda gaashaandhigga wuxuu yiri ciidamada waxaynu ka codsanay waliba kuwa gaarka u tababaran ee daladaha ku booda inay u diyaar garoobaan dagaal si ay u ilaaliyaan waxa uu ku tilmaamay amniga qaranka Masar hadaba marka warbixintu way sii socotay waxa leeyahay wasiirka gaashaandhigga ee Masar ninka la yiraahdo Sarayagaas Abdulmajid Saqar ayaa wuxuu la kulmay qaar kamid ah saraakiisha ciidamada gaarka ay kuwa daladaha ku booda ee Masaarida wuxuuna sheegay inay u diyaar garoobaan dagaal sida uu yiri inkastoo aanu tilmaamin cidda la dagaalamayo kulankan wuxuu dhacay maanta oo axada u fiirsada Masaarida marka waxa ku qeylnaa waxay leeyihiin dagaalkan waa quraafaad cidda la dagaalama si ma jirtay hadduu la dagaalama sheegay leeyin cidda uu la dagaalama wasiirka gaashaandhigga saraakiisha heegan ha gasho ciidanka kumaandooska kuwan waxa soo dhan waxay leeyihiin waa been wax ka jira male waxay leeyihiin nin inuu Israa'iil la diriraba heshiis 40 sano gaas inuu Israa'iil ka soo gato oo uu Masar keeno 40 sano ku dhawaad heshiis soconay ma gali lahaa intaasoo bilyan ay ku qaadanayso lacagtii Masar ay qaadanayso Israa'iil marka waxay leeyihiin sheekadaas sheeka annaka loo akhrinayo ma ahan leeyin waa quraafaad leeyin midaan kalena waxay durayaan iyaduna waxay leeyihiin diyaaradaha hub ka soo qaaday Masar waxaas dhan wax ka jira male in dadka adduunka waxa la rabaa inay filin loo daaro Masar iyo Israa'iil inay israadsanayaan inay dhibaato ka dhex jirto Masar ay hub siinayso Gaza waxaasoo dhan Israa'iil iyo Masaarida waa isla wataana le wax ka jira male dadkan carabta loo ruwaayadeynay kulay marka waa yaabay beesha social media waa la isku garaacaya hadaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa muqaawamada
ayaa sheegtay caawa inay galabta weerar ku qaadeen gantaalaha deegaano yuhuuddu degan tahay oo ku dhow gaza. haddaba muqaawamadu intaysan sheegan waxaa soo baxay warbaahinta ee israa'iil ay faafinaysay. haddaba aan idin tuso aljaziira waxay leedahay waxay sheegeen ciidanka israa'iiliyiinta inay ka hortageen 2 gantaal oo laga soo riday dhanka gaza oo ku socday qulaaf gaza meesha la leeyahay. janaalka 12 israa'iil ay leedahay ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ka hortageen 2 gantaal. kadibna waxaa la sheegay in markaa la maqlay siiriga digniinta ah oo deegaanada qulaaf gaza la leeyahay laga maqlay. markii warkaas marka uu soo baxay muqaawamadii ayaa iyaguna war soo saaray. qolada marka weerarka qaaday waa qolama masraaya alqudsa ma alqasama yaa waay. haddaba markaan idin tuso masraaya alqudus ayaa sheegatay inay duqeeyeen deegaanada la yiraahdo naaxil caws iyo wakafaar sacad oo ka tirsan deegaanada ku dhow gaza. masraaya alqudus waxay sheegeen inay gantaalo ku garaaceen 2 deegaan oo yuhuuddu ay degan tahay. marka khasaaraha ilaa hadda lama yaqaano, laakiin iyaga waxay leeyihiin gantaalahaas waa ka hortagnay inkastoo siiriga digniinta iyo waxa dhan laga maqlayay meesha yuhuuddu degan tahay oo la yiraahdo qulaaf gaza. waa eeriyada ku wareegsan gaza oo yuhuuddu ay markaa degan yihiin. haddaba barnaamijkay galabnimo waa naga intaa. fakari aragtaadna waxaad qabto barnaamijka uga qayb qaado, like garay oo share garay asxaabay meel kastoo aad joogtaan. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.